وعتني intii lagu dhawaaqay natiijada codbixinta doorashada golaha deegaanka degmada Ceergaabo si weyn looga dareemayaa hadanka iyo loonka loogu jiro jagada maayirnimo magaalada Ceergaabo waxaana bulshadu aad u saadaalinaysaa ganacsade Axmed Maxamed Xasan oo ka soo baxay xisbiga maxaafidka kulmiye iyo maayirkii hore degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo ka soo baxay xisbiga wadani waxaana TV-ga caalamiga Honkebel TV wax ka weydiiyay hankiisa siyaasadeed ee maayirnimo Axmed Maxamed Xasan anigoo ah xildhibaan Axmed Maxamed Xasan Baradho halkan waxaan u hambaliyeynayaa oo halkan waxaan taageero u muujinayaa xildhibaanadaydii oo aanu soo wada baxnay oo milgada lahaa aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa degmada Ceergaabo dadkii i doortay oo milgada oo fartooda habeenkii iyo maalintiiba quraxda u taagnaa iyadana waa mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa xisbiga kulmiye baan u mahadcelinayaa oo aan ka soo dhex baxay waxa madaxdeeda sare waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi baan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan degmada Ceergaabo yar iyo weyn dhammaantood waa mahadcelinaya inta ka bacdi waxaan ahay anigu hadeer laga bilaabo maanta bishu 9 tahay Juun inaan ahay musharax u taagan maayirnimada degmada Ceergaabo baan u taagna inta ka bacdi markaa hadii Ilaahay idmo waxaan jecelahay wax qabadkayga inaan qabto ugu horeyn nabadgelyada magaalada Ceergaabo dhammaanteed inaan nabadgelyo iska dhigo dadkoo dhan iskaashi isku gacan isku midanimo sababtoo gobolka Sanaag waxa lagu magacaabaa nabadgelyo daro anigu waxaan jecelahay inaan nabadgelyo ka dhex sameeyo dhammaanteed oo ka dhigo qabiil aan ka dhigin ka dhigo midnimo talabaad hadii Ilaahay idmo ay isiyaan dhalinyaradayda firfircoon oo ah mutacalimiinta waxgaradka haday fartooda isiyaan waxa ballan qaadaya inaan magaalada Ceergaabo nabadgelyo taamal lagu seexdo waxa mar labaad waxaan ballan qaadaya inaan wadooyinka Ceergaabo oo dhagaxa badan aan laami ka wada dhigo muddada intaan joogo waxaan kaloo ballan qaadaya hadii Ilaahay idmo in bari iyo Sanaag bari iyo galbeedba isku xidhmaan wadooyinkoodu waxaan ballan qaadaya hadii Ilaahay idmo inaan noqdo hormuud aan qabiil ahayn ah Ceergaabo waxaan ballan qaadayaa hadii Ilaahay idmo inaan dadka isku wadato oo aan dhalinyaradayda isoo saartay codka i dooratay inaan ay dhinacyadayda fadhiyaan aanan ku dhaqaaqin waxaan iyagu raali ka ahayn aanan ku dhaqaaqin magaaladu waxaan raali ka ahayn oo aanan ku dhaqaaqin waxaan la jeclayn waxaan jeclahay dadka ka cabanaya hadii Ilaahay idmo wadooyinka xidhan inaan u furo ballan qaadaya waxaan kaloo ballan qaadaya dadka shaqaalaha dawladda hoose inaan mushaharkooda caalamiga Honkebel TV magaalada Ceergaabo ay qaataan oo si ay qaataan baan ballan qaadaya waxaan ballan qaadaya hadii Ilaahay idmo inaan noqdo nin nabadda u taagan ana telefishinka caalamiga Honkebel TV oo wax ka weydiiyay ballanqaadkan iyo qorshahan uu ku dhawaaqay wax qabadaya waxa daladiisa kamid ah saatan aan ballan qaaday saad u maqashayba inay degmada Ceergaabo hadii Ilaahay idmo in xubnaha golaha deegaanka markay doortaan ay midnimo noqonayaan waxaan ballan qaaday inaan nabadda ka wada shaqeynayno waxaan ballan qaaday inaan wadooyinka Ceergaabo maadaama ay dhagax badan yihiin muddada aanu joogno inay wada laami noqoto waxaan ballan qaaday inaan nabadgelyada ka shaqeyno oo aan anagu noqon hadaan xildhibaanada inaanu qabiil aan noqono degmo Ceergaabo sidaynu aan ugu dayano gobolada naga hormaray sidaan ugu dayano xisbigayga kulmiye suu nabadda u jecel yahay waayo xisbiga kulmiye wuxuu ku caan yahay iskaashi nookiyada waa taqaanin gacmaha isaa isu qabata marka la shidayo xisbiga kulmiye gacmuhu saa wada jirbu gacmaha saa wada xisbiga kulmiye waa la kaashanayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu jecel yahay baan ku dhaqaaqaynaa oo ku shaqaynayna shanaya dawladda iyo hay'adaha iyo shacabkayga baan la kaashanaya marka waxaan jecelahay Ceergaabo oo meel loo soo dalxiis tago waxay noqon doontaa bidnillah kariim meel loo soo dalxiis tago oo madaxweynaha Soomaaliland uu seexdo nabadgelyadeeda iyo quruxdeeda bidnillah kariim Ali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Honkebel TV magaalada Ceergaabo